weligaa ha xastin hana xaasidin haddii aad aragto qof horumar gaaray noocay doonto ha noqoto hadday tahay cilmi uu bartay hadday tahay maal uu helay hadday tahay ubad uu dhalay hadday tahay maaragtay injaasaad iyo maaragtay ganacsi ballaaran uu samaystay hadday tahay aqoon iyo maaragtay jaamacado badan uu ka baxay wax walba oo horumar ah haddii aad aragto qof walaalkaa oo gaaray ha xastin maxaa yeelay qofkaas horumarkaa uu gaaray waxa uu soo maray dhibaato fara badan ayuu u soo maray wuu u soo gaajooday safar buu u galay wuu u ciishooday dagaal buu galay wuu u murugooday wax badan buu u soo jeeday hanti iyo dhaqaale iyo maaragtay juhdi buu geliyey horumarkaa uu qofkaasi gaaray waxa uu ku gaaray dhibaato fara badan iyo juhdi fara badan oo naftiisa ka gooyey buu ku gaaray waxaase laga yaabaa adigaaga xastayaa inaadan ogeyn dhibkaa iyo qaharkaa uu ninkaas u soo maray maanta possessionka uu joogo waxaa laga yaabaa in aadan adigu fahansanayn ee markaad aragto qofkii horumar gaaray ama isbeddel sameeyey inaad xasadda ayaa laga yaabaa xasadkuna walaal wax badan buu keenaa oo qofka bini'aadanka u geystaa oo maaragtay dhibaato ah ayuu u geystaa naftiisa marka mar walba haddaad aragto qof walaalka ah oo maaragtay isbeddel nolosha ku sameeyey ama horumar maaragtay nolosha ku sameeyey ama maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu intii aan idiin soo sheegay oo sifooyin mid ka mida uu siiyey haddaad aragto maasha allah dheh kelmadda maasha allah haddaad tidhaahdo isha iyo xasadka iyo carabka saddexdaba ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasuu ka xijaabaya haddaba walaal mar kasta aad walaalka horumar sameeyey aragto maasha allah u dheh hana xastin aad baad ma mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu